dagaalkii labaad ee khaliijka caasifatu saxraa operation of storms waa dagaalkii duufaanta saxaraha sidoo kale waxaa la odhanayay dagaalkii xoreynta kuwait howlgalkani wuxuu bilaabmay 17 January 1991 markii golaha ammaanku 29 November 1990 uu ogolaaday in wadamada xubnaha ka ay adeegsan karaan dhammaan tabaha iyo dariiqooyinka laga maarmaanka u ah si ay Ciraaq uga baxdo dalka Kuwait waxaana waqti ahaan loo siiyay ilaa 15 January 1991 15 January wixii ka dambeeya Ciraaq waxa ka hortagi doona awoodda isbahaysi oo ka kooban wadamada reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska sidoo kale dalalka Carabta oo ugu horeeyay Sacuudigu waana xooga ka kooban in ka badan 30 dawladood habeenkii 16 bisha Janaayo saqdi dhexe xoogaga isbahaysigu waxay bilaabeen duqeyn xagga cirka ah oo ay ka qayb galeen diyaaradaha Mareykanka Ingiriiska iyo Sacuudigu howlgalkii duufaanta saxaruhu waa uu bilaabmay waxaa gantaal lagu garaacay Ciraaq iyadoo la bartilmaameedsanayo ciidamada Ciraaq Baghdad waxay lahayd qaybta ugu culus uguna daran duqeynta tiro badan oo waxyeelo ah ayaa ka soo gaaray dadkii rayidka ah ee caasimadda deganaa maalin kadib bilowgii dagaalka labaad ee khaliijka Baghdad waxay fulisay hanjabaadeedii ahayd inay duqeyn doonto magaalooyinka Israa'iil isla maalintii xigtay warbaahinta Israa'iil waxay baahisay khasaaraha ka soo gaaray duqeymahaasi 24 Janaayo xoogaga isbahaysigu waxay qaadeen dagaal xagga bariga ah waxayna Ciraaq ka weerareen dhinacyo dhowr ah ciidamada isbahaysigu waxay galeen Kuwait iyo koonfurta Ciraaq isla maalintii xigtay Ciraaq waxay ku dhawaaqday inay qaadayso dhabaha ay uga baxayso Kuwait isla markaana ay aqbashay dhammaan shuruudaha bixitaanka 26 January ay ciidamada Ciraaq si aan nidaamsanayn uga baxeen Kuwait 27 January-na madaxweynihii Mareykanku waxa uu ku dhawaaqay in Ciraaq laga joojiyo dagaalka iyo sidoo kale in Kuwait la xoreeyay 14 Maarch ayuu Sheikh Jaabir al-Ahmed al-Sabah uu ku noqday Kuwait isla markaana xukuumaddiisii dib u soo dhisay wuxuu ahaa dagaalkii duufaanta saxaraha ee Ciraaq mid ka duwan dhammaan dagaaladii hore sababtuna ay tahay inuu ahaa dagaalkii ugu horeeyay ee telefishinada lagu baahiyo laga soo bilaabay markii uu qarxay ilaa dhamaadkiisii sawirada gantaalaha diyaaradaha dagaalka ciidamada iyo saameynta iyo burburkii uu ka tagay ayaa la daawan karayay Ciraaq waxay lumisay 4,000 oo taangiyo ah iyo 240 diyaaradood waxaana burburay difaaciyadeedii cirka saldhigyadii gantaalaha iyo maraakiib dagaal oo ku sugnaa gacanka ilaa 200 oo kun oo ciidanka Ciraaq ah iyo sidoo kale 200 oo kun oo rayid ah ayaa ku nafwaayay dagaalkaas halka ciidamada isbahaysiga ay kaga dhinteen 505 kun oo ay ku jiraan 472 Mareykan ah Ciraaq waxay go'doon waqtiga lagu soo rogay ay ku jirtay ilaa 12 sanadood